dhawaada mar cusub waxaan joognaba xilligu ahaadaba habeen iyo maalin waxaan horay uga hadalnay macdano badan hadda maanta waxaan soo qaadanay 3 buurood saddexdan buurood xilli waxay joogan gabalgaaba qorraxdu ay sii dhacayso dayaxuna uu soo baxay asagoo dayax gaaban oo xoogaa qorraxda ka dameeya saddexdan buurood markaan sharaxo buur midabkeedu waa madow xigeen buurra midabkeedu waa gaduud buurra midabkeedu waa jaalle waana saddexdan cimilo oo ciiduhu u badan yihiin iyo cimilada iyo buuraha saddexdan buurood markii qorrax gaabadkii ay gaadhay ee qorraxdu qabatay oo si caawisanaysa waxay tilmaan u bixiyeen inay leeyihiin macdan gaar ahaan iftiinka ay soo tufayaan wuxuu sheegayaa dahab iyo macdanaha la deriska inay leeyihiin taas oo ka dhigaysa kheyraadka dunida inuu yahay kheyraado tiro badan dadka arki jiray buuraha noocaan ee buur saddexdan midab ka mid leh goortay qorrax gaabadka tahay markuu saa u fiiriyo arki jirayna wuxuu ogaanayaa xaqiiqooyinkii ka qarsoonaa ilaa iyo hadda barnaamijkan mar walbaba waxaan idinku soo qaataa qodobo cusub iyo qaybo iidan horay markaas iidan iiga maqal maalin walbo aynu joognaana waxayna baraysaa timaado cusub maalin walbo ayna ka tagtaana tagtadeeda waxay la tagtaa khayr markaan qiimaha iyo eegno qaayaha uu dhulku leeyahay waxaa halkaa inoo ka muuqanaya xogo tiro badan oo aynu weli ogaanin mar walba oo la sii dadaalo waxaa la sii arkayaa xog iyo aqoon cusub aragtidiina haddii aad buurahan oo kale aragteen ii soo qora commentiga igula soo wadaaga qorshahan waxaa la yiraahdaa hal dhul 3 buurood 3 midab hanti qarsoon oo dabiici ah waa wax aan haddii aan qiyaas qaadano aan inta badan isku mar la heli karin haddana laakiin tusaale ahaan waan isu keennay oo waxaan isugu keennay samayn anagu aanu diyaarinay markasoo aan wax isu keento ama wax cusub aad diyaariso waxaa laga ogaadaa halkaa wax bulshada ka qarsoonaa oo qiime iyo qaaya leh haddii aan dadaalkeenan sii wadno waxaan mararka qaar dadku ay u arki karaan inaan waxyaalo aan macno lahayn aan sheegayno laakiin 10 hadal oo aan dhaho hal hadal oo muhiim ah oo qofka uu ka fahmo haddii la isu geeyo 100 maalin oo daawaday 100 kalmadood bay noqonayaan waxayna noqon karaan curis uu qofku wax ku bilaabi karo waa qiyaasta ugu yar markasoo anigu aan macdanta iyo kheyraadadan ku dhex jiro research-kooda iyo baaristooda iyo hagidooda bulsho macnahoodu ma ahan inaan anigu macaash badan ka helayo laakiin macnaheedu waa inaan bulshada wax fahansiiyo waxaana dhacda ardayda anigu aan tababaray ama aan macdanta hagaha uga ahaa qaar ka mid ihi inay aniga igaga dhaqaala bateen igana kheyraad badan yihiin waana arrin aan ku faraxsanahay research-ka marka aan samaynayno ha u moodinina wax iska sahlan waa wax sahankan iyo sheekadan wax badan oo xoga ayaa ka dhex dhalanaya xogtaasina waxay tari doontaa bulshada wax badan sidoo kale waxaan barnaamijyadeena ka marayn hawlo tiro badan oo aan wadno sida inaan arday barno farsamada macdanta annaga oo talentiga u siina hagid talooyin ah mararka qaarkood buugaag mararka qaarkood waxyaalo ay heleen aan u baaro mararka qaarkood xog ay noo keeneen aan u sii jilcino mararka qaarkood qalabyo iyo kheyraad ay u baahnaayeen inay wax ku fududeeyaan aan u dalabno mararka qaarkoodna dhulka ay ka shaqaynayaan marka ay shaqada bilaabaan aanu step marka ay wax arkaanba ay nala soo wadaagaan oo aanu nidhaahno stepkaas halkaasaad maraysaan waxaas iyo waxaasaad filashadiina dhow ah marka mar walba
xog aanu diyaarino waxay noo soo dhaweysaa xog kale, idinkana mar walba aan xog idin soo diyaarino waxay idin soo dhaweynaysaa xog kale. dariiqan dunidu waa dariiq yar oo la qaadayo, in badan oo waxa uu leeyahay tagto aan tayo lahayn, in yar oo timaado tayo badanana wuu leeyahay, tagto la tabana wuu leeyahay. qiyaasteennan marka aan ku noqono qaybteennii walba oo la joogo, buuraha dahabka lihi inta badan waxay u badan yihiin buuro 3 ah: buuro cad, caddaan xiga, buuro gaduud xiga, iyo buuro madow xiga. inta badan 3daas nooc oo buuraha waxyaalaha dariska la ama hagaha waa waxa ka mid ah inay buuruhu leeyihiin macdanta. markii dahab laga yimaado, macdan markii la arko, dahabku waa macdanaha ugu yar oo bahmadiga ah. marka dahab la arko, marka macdan kale oo tiro badan ayaa la arkay macnaheedu weeye. laakiin dadka doorashadooda waxa ay markooda hore raadinayeen ayaa hagaha u noqda. marka halkaa marka aad joogtid waxaad ogaanaysaa xaqiiqooyinka qarsoon. dahabka ilaa 20 macdanood ilaa 30 macdanood ayaa qoloba mar la socotaa. qoladee la socoto weeye tripkaas. marka aad dahab kaliya doonaysid waxaad tahay nin qof hal meel u socda ama gabar hal meel u socota. laakiin aniga hal hagid ayaan idin siinayaa dadka dhageystayaasha ah ama barnaamijkan la socda. qof kasta oo wax raadinaya waxa uu raadinayo inta uusan raadin waa inuu bartaa. haddaadan waxa baran, waxaad raadisaa waa been, waxaad samaysaana waa xiiq, waxaad dhaxashaana waa waali. sababtoo ah waxaadan aqoon ayaa doontay, waxaadan filin ayaad kala kulmi doontaa. marka anigu waxaan idin leeyahay aqoonta raadiya. aqoon kaliya wax ma qabato. marar badan waxa aqoonta caawiya oo ah inaad leedahay qalab. marka aad doonaysid macdanta aad doonaysid waa inaad taqaanaa cimilada aad ka doonaysid. sidoo kale waa inaad taqaanaa qalabka aad ku doonaysid. sidoo kalena waa inaad taqaanaa xilliga aad doonaysid. sidoo kale waa inaad leedahay meel aad u iibgeysid. waa inaad leedahay haddii caqabado ku qabsadaan cid marjac ah oo aad u laabatid. haddii aad intaa heshid waxaa loo baahan yahay maxaa caqabado kale oo aad la kulmi kartaa inaad isweydiisid. mar walba oo aad wax qoondeynaysid caqabadaha ayaa lasoo hormarsadaa, kadibna adoo og caqabadaha aad la kulmaysid ayaa la xalliyaa caqabadahaaga. inta aad xallisid maalinta kale oo aad la kulmi doontid haddaad taqaanid waa waxaad taqaanid, cusri badan kuguma hayaan. laakiin wax walba haddaad dabacsatid oo jilacsatid waxaadan ka filayn ayaa kaala kulmi karaa. markaasna waxaad dhaxli doontaa inaad culays iyo wareer iyo waali dhaxashid. murugo iyo qoomamo ayaa kugu xigi doonta. waxaana macquula inaad si degdeg u hanjabtid. aniga marka daraasadaydu waxay qabtaa mar walbaba inaan waxbarasho samayno. waxbarasho kadibna aan wax qoondaysano. waxa aan qoondaysanana aanu dhaqaajino. mararka aad wax dhaqaajinaysid waxaa loo baahan yahay inaad taqaanid aqoonta. haddaad haysatid qalabkaad u baahan tahay, haddaadan qalabka gadan karin waa inaad heli kartaa cid aad la shaqaysatid. haddii aadan heli karin cid aad la shaqaysatid waa inaad la taliye iyo khabiir arrimahan quseeya leedahay. sessionka aad mar walba joogtid wuu hagayaa qayb ka mid ah aqoontaada iyo waxqabadkaaga. anigu waxaan ahay Cabdullaahi Said Sheekh Xasan, waxaan ahay hagahiina macdanta. waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijkan subscribe garaysaan, like garaysaan, share garaysaan, saaxiibadiin oo dhan gaarsiisaan, commentigan igula soo hogtaan waxaad ka hesheen oo xoga iyo wixii aad u baahnaan lahaydeen inaan idiin soo tabiyo. waxaan kale oo idin sheegayaa lambar inuu hoos yaallo aad igala soo xiriiri kartaan WhatsApp-ka ahaan iyo wicida caadiyaba. waxaan intaa idinku darayaa waxaa jirta arday aan macdanta barno oo isdiiwaangelisa. ardaydaas oo hab
caalami ah wax u barta marka ay xog u soo baahdaan nala soo xiriira mararka kalena danahooda iska raacda. Markaan haba qorshe cusub iyo buug cusub iyo dhisaan cusub soo kordhino aan la wadaagi karno. Waxaa jira inaanu samayno baaro dhagxaanta macdanta ah annagoo ku baarna sawir lacag yar oo sahlan dadka qaadna waa mahadsanid.